عيد وناكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحن رجينا سنة إلهي إنه جارسي عافمات يا عمري يا برواقو يا هرمر هدو إلهي هذا runtii aad iyo aad yaan kaga mahad celinahay shaqada adag aad haysaan habeen iyo maalin soo jeedka dhaxanta kaneecada iyo dagaalka joogtada ah aad kula jirtaan argagixisada iyo cadow guud ee Soomaaliyeed runtii aad baan runtii kaga mahad celinaynaa hawshaad ku jirtaan ma aha shaqo ma aha waa waajibaad wata naftiina inaad hurtaan oo naftiina aad u hibaysaan difaaca ummaddiina dalkiina dowladnimadiina marka runtii aad baan runtii kaga mahad celinaynaa idinku hambalyeynaa shaqada wanaagsan aad ummad u haysaan la'aantiin dowlad ma jiri karto qaranna ma jiri karo dal wuxuu ku dhisan yahay xooggiis ciidankiisu ku dhisan yahay dal aan ciidan lahayn dal ma noqdo dowladna ma noqdo marka idinkaan idinku jiifaa dalka idinku degan yahay naftiina aad huraysaan maalin walba aad dhaawacmaysaan runtii waa idinkaga mahad celiyaa qof walba oo Soomaaliyana waa idin ogyahay marka waxaan kula dardaarmayaa inaad xoojisaan inaad soo celisaan sharafka dalkiina iyo dowladnimadiina waxaana gaarteen horumar weyn xaqiiqatan markaan idin sheego qayb waxaa ka ah madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo idinka aad hoos tagtaan iyo taliyaashiina iyo tababarka aad haysataan iyo qalabka runtii aad haysataan yaa qayb ka ah horumarka ama progresska aad gaarteen fare kama qodna waxaan rajaynaynaa inaan xoojinno oo aan soo celinno haybaddii ciidanka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen caalamka oo loo yaqaanay inay ahaayeen ciidanka ugu xoogga badan ciidanka ugu tayada badan ciidanka ugu qalabka wanaagsan qaybaha kala duwan oo maxaan ku raahdaa laga rabo ciidan hadday tahay ciidan bad maraakiibtii iyo doomankii ay lahaayeen hadday tahay ciidan cir ciidankii cir dee ciidanka cirku waxa weeye waa diyaaradihii dagaalka oo noocyada kala duwan ay Soomaaliya lahayd iyo dadkii ku shaqaynayay hadday yihiin pilotska iyo makaaniga iyo ciidanka dhul oo noocyada kala duwan ahaa waxayna ku soo noqonaysaa annagoo u wada jeesanaa hal mowqif oo ah inaan u adeegno dalkan uguma adeegaysa haddaadan waddani ahayn waxaan naqaanaa wixii dalka burburiyey oo aan ku celcelinno mar walbana loo baahay in lagu celiyo oo qabyaaladda ahayd indhaheen aan ku soo aragnay annagoo joognay meesha ugu sarraysay inaan nimid meesha ugu hoosaysay marka qofkii raadiya wax hoose dan shakhsi qofkii raadiya dan qabiil iyo qabyaalad jawaabteedu waxay tahay meel hoosaad joogaysaa haddaad raadiso qaran wax lagu waaridiyeeyaa waddaniyad waxaa weeye waxaad tegaysaa waxaad dhisanaysaa ciidan xoog leh oo awood leh yaad dhisanaysaa oo aad ku helayso xushmad iyo sharaf iyo karaamo dalkaaga dhexdiisa iyo dibaddiisaba maxaa yeelay cadowga soo hunguriyeen kara ma jiro hadduu yahay gudaha iyo dibaddaba marka waxaa ii muuqda ififaalo wanaagsan waxaa ii muuqda rajo wanaagsan sidaad u shaqaysaan sidaad u dhisan tihiin kala dambayntiinna mana ku shaqaysaan dhaqaale waa ogahay maxaa yeelay dhaqaalaha ciidanka uu ka helo dowladda waa xadidanta waa gaari doonnaa waqti ciidanka laga hormariyo wax walbaba hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay mansab waa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa sanadkiisa kale inuu ilaahay nagu wada gaarsiiyo caafimaad iyo horumar wasalaamu calaykum waraxmat ullah